بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد gaarsiiyay soo dhawaada waxaan hore u sii qaadi doonaa casharradeena serious ka ahay ee uga hadlaynay Microsoft Excel maanta waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano formula bar iyo siyaabaha uu u shaqeeyo cashirka marka uu dhamaado wuxuu baran doonaa qofkii dhameysta inuu fahmo wuxuu yahay formula bar halka laga helo markii la joogo Microsoft Excel sidoo kale sidoo u shaqeeya formula bar kusoo dhawo cashirkeena maanta markii aan timaadid ama soo kicisid Microsoft Excel ka waxaan arki doonaa maxaa la yiraahdaa qaybta horeete interface-ka halka u dhaxaysa ribbons-ka iyo sheets-ka dhexdooda ayaa waxaa loo yaqaanaa formula bar sidoo kale inta markii aad ku dhaweyso cursor-ka halkaas waa arkaysaa waxaa loo yaqaanaa insert function meeshaas waa halka formula bar-ka ama uu ku shaqeeyo markii ay joogno formula bar-ka ama formula bar-ka joogno wuxuu ku ogolaanayaa ilaa iyo 3 shay in aad xog ku qortid oo xog cusub aad gelisid halkan way ku ogolaanaysaa laba wuxuu kale ku ogolaanaysaa inaad ku qortid formula ama qaacido si uu function u sameeyo Excel-ka aad sameynaysid sidoo kale halkan wuxuu ku ogolaanaysaa inaad wax ka bedeshid ama aad aragto cell waxyaabaha ku qoran markii aad rabtid inaad ogaatid ama aad wax ka bedeshid ku sheegi doona formula bar-ka waxa aad sameynaysid waxaa jiro farqi u dhaxeeyo markii la joogo cell iyo markii la joogo formula bar cell markii la joogo wax kasto aad cell-ka ku qortid waxay ka soo muuqan doonaan formula bar-ka oo halkaas ah tusaale halka marka ku qoro waxa arkaysaa waxa soo muuqan doona halkaas hadii aad qaacido galiyo oo equal waxa soo muuqan doona qaacido formula bar-ka iyo maxaa la yiraahdaa labadoodaba waa wax isku dhigmo oo hawsha ku kala sameynaya marka Excel-ka ku dooran adiga oo isticmaalayo marka si aan marka u soo kicino ama aad u isticmaashid afar tilaabood ayaa maraysaa waxaad dooran doontaa cell-ka aad rabtid inaad wax ku qormaan oo aad rabtid inaad wax ku qortid laba waxaad ku jiri doontaa formula bar-ka halka cell-kaas aad doortay ay noqon doontaa xogta meesha ay kasoo muuqan doonto kadib markii aad rabtid function waxaad ku bilaabi doontaa calaamadda equal-ka ah hadii aad rabtid inaad wax caadi ah ku qortid shayga aad rabtid ay ku qori kartaa tusaale ahaan hadda waxaan rabaa meesha inaan ku qoro gaarsiiye waxa toos ugu soo muuqan doono gaarsiiye hadii aad doorto cell kaleente ee halkan aan dhaho waxaan rabaa inaan qaacido ku qoro tusaale equal markii aan dhaho meesha waxaan gelin karaa qaacido tusaale isku geynta sum waxaan u baahanahay inaad isku geysid ardayga ugu horeeya ayaan xogtiisa marka waxaan ka bilaabay tusaale maska maxay ka keentay tan laba lagu ogol yahay inaad ku jiidid oo aad maxaa la yiraahdaa inta aad rabtid isku dartid inaad ku jeedid kan aad ku soo xirtid maxaa la yiraahdaa bracket enter aad dhahdid waxa ku soo bixi doonta ayaan isku geynteeda inay tahay 253 total waxa ay ka keentay oo halkan aad ka arki karaysid marka sida daay aan soo sheegabo hadda markii aan ku dhufto 253 meesha ay ka timid ma aqaan markaan kala siiyay wuxuu ii sheegi doonaa qaacidada meesha ay ka timid ama uu ku sheegi doonaa markii aad ku dhufatid number kamid ah wuxuu ku sheegi doonaa kaliya inay tahay meesha cell-ka wax ku jiro tira caadi ah laakiin marka halka ku dhufatid cell-ka wax ku jiro waa qaacido oo ma ahan tira caadi ah marka sidaas oo kale inta ayaa arki karaysaa dhammaan cells-ka marka ku dhufatid average-ka markii la sameeyay in qaacido la soo geliyo grade-ka markii la sameeyay in qaacido la soo geliyo pass marks-ka markii la sameeyay in qaacido la soo geliyo iyo remarks-ka ardayga loo qoray ama loo sameeyay marka example-ka aan ku qaadanayno tusaale hadii aad tahay ganacsade waxaad formula bar-ka uu ku ogolaanayaa inaad wax ku qortid ama aad ogaatid waxyaabaha aad sameysay tusaale business-kan wuxuu ka ganacsadaa laptop-yada printer-yada muuska iyo keyboard-yada waxyaabaha loo yaqaan marka halkan waxa ku qoran kartaa mid walba unit cell-ka kadib price-ka marka joogno qaybahani wuxuu ku sheegaa formula bar-ka tirada original-ka uu ku qoray qofka soo geliyo xogtan laakiin marka revenue-gu imaano automatically isa ku sameeyo doon Excel-ka wuxuu ka dhufan doonaa unit price-ka plus revenue inta daa'imaano oo sida haday aan equal waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo laba qayb sameyn kartaa inaad shayga aad qortid ama sum aad qortid ama multiply aad qortid ama inaad dooratid automatically isaga oo ku dhufatid click then the shift calaamadda ku dhufashada ah
then waxaad dooranaysaa seelka kaleeto numberka aad rabtid inaad ku dhufatid, then waxaad dhihi doontaa enter. waxaa noo soo baxay hadda save revenue-ga. markuu revenue kuu soo baxo haddii aad rabtid tiimka kale oo dhan inaad ku apply garaysid, kaliya waxaa kaaga filan calaamadaas plusta inaad ku dhufatid, then automatically tiimka kaleeto wuu qaadan doonaa excelka isaa samayn doona. marka maanta waxaan baranay formal bar muxuu yahay, waxyaabaha oo shaqooyinka oo qabto formal bar maxay tahay, sidoo kaleeto markii aan joogo excelka si uu ogaan karaa xogta selka ku jirta ama farqiga u dhexeeya formal bar iyo selka. aad ayay u mahadsantihiin, waa inoo cashirkeena dambe. wabillahi tawfiiq.